Manchester City oo dooratay tababare oo ay ka xulanayso beddelka Pep Guardiola iyo Real Madrid oo dalbatay xiddig kale oo Ingiriis ah. Haddaba waa kii xiddigaasi muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa ee soo dhow daawade, balse marka hore like share muuqaalka sina share garee. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa xulatay tababare oo ku soo baxay liiska kaaban ee macallimiinta ay doonayso in midkood uu noqdo beddelka Pep Guardiola oo la sheegay inuu ka fiirsanayo inuu soo gabagabeeyo waqtigiisa Etihad Stadium. Pep Guardiola oo xilciyaareedkii tagay u qaaday Manchester City 3 koob ee Champions League, Premier League iyo FA Cup ayaa waxa uu muddadii uu Etihad Stadium joogay waxa uu kooxdiisa Manchester City ku hogaamiyay 13 koob, halka cimrigiisa tababarnimo oo dhan uu ku guuleystay 34 koob muddo 15 sanadood ah oo uu tababare yahay. Pep Guardiola oo heshiiskiisa uu kula jiro Manchester City uu ku eegyahay sanadka 2025 ayaa waxaa la sheegay inuu doonayo inuu ka tago Etihad Stadium marka uu dhameysto xilciyaareedka dambe ee soo gunaanadaya waqtiga qandaraaskiisii uu saxiixay. Inkasta oo aan weli la ogaanin qorshaha ka dambeeya go'aanka Pep Guardiola isla markaana aanu isagu si rasmi ah u shaacin, haddana agaasimayaasha ciyaaraha ee Manchester City Tkiski Bergkistyan iyo Ferran Soriano ayaa la sheegay inay raadinayaan tababarihii bedeli lahaa, waxaana u calaamadeysan 7 tababare oo midkood ay u doonayaan inuu la wareego booska. Xulashada koowaad ee Manchester City ayaa la sheegay inuu yahay Mikel oo ah tababaraha Girona oo qayb ka ah kooxaha City Group oo hoos yimaada Manchester City, kaas oo falsafada ay isaga mid yihiin Pep Guardiola. Mikel ayay kooxdiisa Girona ka yaabisay kooxaha horyaalka waddanka Spain ee La Liga oo ay hoggaan ku hayso, waxaana horaantii asbuucan ay 4-2 ku garbaasheen naadiga Barcelona iyaga oo 2 dhibcood ka sareeya Real Madrid oo kaalinta labaad ku jirta. waxaa kale oo liiska tababarayaasha ah ay Manchester City doonayso ku jira Mikel Arteta, Roberto Di Zerbi, Vincent Kompany, Xavi Hernandez, Xabi Alonso iyo Ange Postecoglou oo ah isagu tababaraha naadiga Tottenham. Dhanka kale kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku raad joogta xiddiga da'da yar ee reer England ee Jude Bellingham oo ay doonayaan inay la saxiixdaan suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaaga fooda nagu soo haya, kadib markii ay daawadeen bandhig heer sare ah uu ka sameynayo horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska ee Championship-ka oo ay kooxdiisu Sunderland ka ciyaarayso. Joby oo ay walaalo yihiin xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Real Madrid ee Jude Bellingham oo xagaagii ay lacag dhan 115 milyan oo kani kaga soo iibsadeen Borussia Dortmund ayaa waxay hadda qorsheynayaan inay walaalkiina keenaan Santiago Bernabeu oo ay iska karab ciyaaraan. Jude Bellingham oo 19 ciyaarood oo dhammaan tartamada ah u saftay kooxdiisa cusub ee Real Madrid u dhaliyay 16 gool 5 kalena caawiye ka noqday ayaa waxa uu door weyn ka ciyaarayaa qorshaha ay kooxdiisu ku doonayso inay kula soo wareegto walaalkii Joby oo isaguna ka soo baxay kuliyadda Bellingham ee uu hore Jude uga ciyaari jiray balse u sii dhaafay Sunderland. Joby Bellingham oo ay da'diisu tahay 18 jir ayaa waxa uu Sunderland u dhaliyay 4 gool xilciyaareedkan, waxaana ay kooxdaasi ku haaminaysaa inay u soo dalacdo horyaalka Premier League oo ay dhowr sannadood ka maqnayd. 18 jirkan iyo qoyskiisa ayaa xagaagii waxa ay yimaadeen garoonka Santiago Bernabeu oo ay kaga qayb galeen xafladii lagu soo bandhigayay Jude Bellingham, waxaana la rumaysan yahay inuu doonayo inuu raaco raadka walaalkii oo ay hal koox ku wada mideysnaadaan.